السلام عليكم ورحمة الله. waxaan jeclaysiin in idin la wadaago qisadan. waxay dhex martay nin yahuudi ah iyo wiil ariga ilaalin jira oo muslim ah ama raaci ama qowsaar sida u taqaanidba. maalin maalmaha kamid ah ayaa waxaa soo baxay nin yahuudi ah wuxuuna soo aaday magaalo ama tuulo yar oo ay ku noolaayeen dad muslimiin ah. ujeedka guud ee uu soo baxay waxay ahayd inuu shaki ama waswaas ka geliyo dadka diintooda. waa uu soo baxay intuusan tuulada soo gelin ayaa waxa uu duleedka kula kulmay wiil ari la jooga. kadibna wuxuu isdhahay maad fikirkaada wiilkanba ku bilowdid. waa uu yimaaday waana uu la fadhiistay wuxuuna ku yiri niyahow inagu haddii aynu nahay muslimiin waxaa ina haysta dhibka ina haystana waxaa weeyaan qur-aanku aad ayuu u fara badan yahay. wuxuu ka kooban yahay 30 juz. aadayna noogu adag tahay inaan xifdino ama barano. marka waxaa ku jira qur-aanka aayado fara badan oo isku eg oo haddana isku micno oo waxba ku kala duwanayn. ka waran soo ma fiicnaan lahayn haddii aan aayadahaas isku eg aan xadafno oo aan hal xabo ka soo qaadano maadaama isku micno yihiin oo isan micno weyn soo kordhinaynin in aayado tiro badan oo isku eg oo isku macnaha maanta dhan lagu celceliyo. sidaas darteed waxaa inaga yaraanaya jusaska qur-aanka waxaana inoo fududaanaya inaan xifdino. wiilkii intaas waxa uu ku dhageysanaya aamusnaa yacni ninka hadalkiisa isagoo aamusan ayuu dhageysanaya. kadibna wuxuu ku yiri waa arrin qurux badan. markaas ninkii qalbiga ayuu ka farxay yahuudiga ahaa wuxuuna isdhahay wuu hirgalay ama shabaqaadii ama dabinkaadii ayuu kusoo dhacay wiilkani oo fikirkaadii waa uu qaatay. laakiin wiilka hadalkii waa uu sii wato wuxuu yiri bal ka waran adiga naftirkaada. marka waxaan idinka ilaabay ninku wuxuu ahaa nin buuran. ninkaas yahuudiga nin buuran ayuu ahaa. kadibna wuxuu ku yiri bal ka waran adiga jirkaada waxaa ku jira xubno tiro badan oo isku eg oo waxba ku kala duwanayn sida labada lugood, labada gacmood, labada dhagood, labada indhood iyo meelo badan. sidaas darteed maadaama ay isku mid yihiin ka waran haddii aan xadafno laba kastoo isku eg aan hal xabo ka soo qaadano maadaama ay culays mahana wax kale kuu haynin si miisaankaada aad u dhintid oo kaaga kala yaraato baruurta ama cayilka. isku midna waaye waxba kuma kala duwana gacan lug isku eg yihiin yacni. markaas ninka yahuudiga waa uu naxay waana uu istaagay wuxuuna dhahay haddii ay jawaabta midkooda ariga ilaaliyo oo waxba garanaynin sidaan tahay maxaan u malaynayaa inay noqon doonto jawaabta kuwooda culimada ee diinta bartay.